YouTube waxa uu bedelay noloshii. Waxaan ka bartay xirfadihii kuwooda ugu fiican. Waxa uu kor u qaaday heerkayga muuqaal sameyneed. Waxa uu ii noqday portfolio aan ku soo bandhigo xirfadahayga. Inaan barato sida ayaa kor ugu qaadi kartaa xirfadahaaga adigoo adeegsanaya YouTube. YouTube ma ahan oo keliya madal lagu soo upload gareeyo muuqaalada, waa madal aad kaga maarmi karto wax waliba oo aad ugu baahan tahay inaad xaadirto galaas ama aad macallin si toos ah ugu hor fadhiisato. Sanadu waa 2002 waana maalintii aan go'aansaday inaan barto xirfadda muuqaal sameynta. Maalinta wax fikradaha kama aan haysan muuqaal sameynta sidii aan u baran lahaa iyo halkii aan ka baran lahaa. Laakiin alla mahadi maanta oo maalintaas laga joogo muddo ku dhow waxaan bartay xirfadda muuqaal sameynta in ugu filan waliba aan weli gaarin halkii aan rabay. Muuqaal sameynta waxaan ka soo bilaabay application aan ku soo qaatay waqtigayga inta ugu badan ee xirfadda muuqaal sameynta ilaa sanadihii ugu dambeeyay aan horumariyay xirfaddeeda muuqaal sameyneed. Haddaba laga soo bilaabo maalintii aan go'aansaday inaan barto xirfadda muuqaal sameynta ma helin macallin toos, sidoo kale ma aanan xaadirin galaas, mana aanan iibsan wax kooras ah. Waxaa dhammaan aan ka bartay madasha YouTube oo sanadihii ugu dambeeyay ay noqotay madal gebi ahaanba beddeshay noloshayda. Waxaan ka bartay xirfadihii kuwooda ugu fiican, korna u qaaday xirfaddeeda muuqaal sameyneed. Sidee ayaa YouTube ugu baran kartaa xirfad waliba aad rabto inaad barato? Si aad YouTube ugu barato wax waliba oo aad rabto inaad barato, waa inaad ka gudubtaa heerarkani. Waa inaad qeexdaa waxaad rabto inaad barato. Tusaale ahaan, waxaad rabtaa inaad barato xirfadda muuqaal sameynta. Marka hore, go'aanso software-ka ama application-ka aad rabto inaad isticmaasho. Qor erayo sax ah oo lagu raadiyo casharrada. Erayada aad ku raadinaysid casharrada waa muhiim. Tusaale ahaan, markaad rabto inaad raadiso casharro ku saabsan video editing-ka, waxaad ku raadinaysaa erayo sahlan sida How to edit videos with CapCut for beginners, Adobe Premiere Pro Basic 2025. Hadba waxaad ku dabaqaysaa heerka aad rabto inaad barato iyo waxaad rabto inaad barato. Hadduu yahay basic, medium ama xitaa advanced, fiilo gaar ah waxaad casharrada aad ku raadin kartaa luqad waliba. Dooro playlist ama taxane muuqaal ah oo raadi taxane muuqaal ah oo iswata si aad si fiican ugu fahanto software-ka ama application-ka aad baranaysid. Samee practice, daawac casharro badan kadib ku celceli wixii aad soo baratay, oo samee mashruucyo yaryar adigoo tijaabinaya wixii aad soo baratay. Raac kanaalo tayo leh. Kanaalada tayada leh waxaad ku dooran kartaa sharaxaad cad iyo tusaalooyin muuqda. Sidoo kale, iska ilaali inaad casharrada aad ka daawato kanaalo kala duwan si aadan ugu wareerin. Si kooban, dooro software ama application, raadi casharro taxane ah, raac kanaalo tayo leh, oo samee practice joogto ah. Intii aan u guda jiray isbaridda xirfaddayda muuqaal sameyneed, waxaan sameeyay hal farsamo oo iga caawisay inaan marba mar ka sii dambeysa aan kor u qaado xirfaddayda muuqaal sameyneed. Taasi oo ahayd inaan sameeyay YouTube channel aan ku soo gudbiyo muuqaaladii aan markaas sameynayay. Taana waxay iga caawisay inaan xil iska saaro sidii aan muuqaalada aan soo gelinayo kanaalkaasi aan uga dhigi lahaa kuwo tayo leh. Sidoo kale, farsamadani waxay iga caawisay inaanan ka caajisin barashada muuqaal sameynta. Dabcan waa farsamo cajiib ah, si la mid ah adiga haddii aad rabto inaad kor u qaaddo xirfaddaada muuqaal sameyneed, waxaa kula talin lahaa inaad samaysato madal aad ku baahayso muuqaalada aad sameynaysid. Ha ahaato inaad samaysato kanaal YouTube, ciwaan TikTok ama xitaa Facebook page. Sidoo kale, farsamadan waxaad u adeegsan kartaa xirfad waliba aad rabto inaad gaarto heer sare.